salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ama dhegaystayaal kusoo dhowaada qayb kale iyo barnaamijkeena iyo xulashada toddobaadkan waxaa miiska inoo saara mid ka mid ah lafdhabarkii fankii soomaaliyeed xidigtii kooxdii lagu dhaadan jiray ee waa beri barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cabdilingaad iyo walaalkay maxamed cali cadaani bilowgii kontameeyadii ayay ku dhalatay dilaa oo ka tirsan gobolka awdal magaalada booreme ayay timid ayadoo da-deedu yar tahay halkaas bay waxbarashada malcaamadda iyo dugsiga hoose dhexe ba ku qaadatay hargeysa ayay judhiiba timid fankana ka bilowday firfircooni iyo fahan gooni ah ayay fanka la soo gashay markiiba maxamed cumar huryo allaha u naxariista ayaa heeskeedii koobaad u dhiibay laxankana waxaa ugu laray maxamed cigo oo loo garan ogyahay ilbir waatan iyadana codkeedu ku biirisay iyadoo leh waxay ku noqotay heestaas fanaanad la aqoonsaday iyadoo heestaas oo qudha leh ayaa axmed salebaan bidde isna hees kale u dhiibay heestaa markii hore wuxuu rabay abwaanku inuu shamisa bakar oo ku magac dheerayd gaduuda carwo u dhiibo ilaahay ha u naxariistee waayo heesta ayaa dareen gooni ah abwaanka u lahayd cid ka soo bixi karta oo si fiican loo yaqaan ayuuna la rabay si gaduuda carwo iyo baxsan ayaa ka cudur daartay kana codsaday abwaanka inuu u dhiibo inantaa si ay ugu soo baxdo isagoo ka werwersan inay sidii loo baahnaa u qaadi karto ayuu u dhiibay heestii waa ka soo dhalashay waxay noqotay heestii loogu jeclaa wakhtigaas ilaa haddana ma duugoobin oo waa sideedii laxanka waxa uu sameeyey ismaaciil yare allaha u naxariistee iyaduna cod dananaya oo diiqadda ka saaraya ayay ku sidigtay erayo laab wax jecel ka soo go-ay waxa ayna tidhi adiga islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waxaa filayaa qofkaasi inaad wada garateen waa fanaanadii kaligii wadaniga ahayd ee hibo maxamed hudoon oo wakhti dambe weriye cowke allaha u naxariista u raaciyay naanaysta ah hibo nuuro intaas kadib ruwaayadii shabeelnaagood ayay agtarad ka noqotay waxaana loo bixiyey xidigada shabeelnaagood xaggaas ayay kasii wadatay badweyntii difaneed oo ilaa iyo wakhti dhow tixneed waxyaalaha aan ku xasuusan doono waxaa ka mid ah dagaalkii kii codkeeda ayaa ciidanka iyo shacabkuba ku dagaalgalay iyada iyo tubeec ayaa wehel u ahaa waa kuwii lahaa iyagoo darantooriya gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo riwaayado badan ayay ka qayb qaadatay heeso badan ayay codkeeda noogu soo gudbisay heesaha kuwa wadaniga ah iyo kuwa jacaylka ah ayay ku badnayd ruwaayadaha xagga dhaqanka hiddaha iyo asluub wanaagga ayay u janjeedhay mar walba qabiilku lama weynayn qarannimada ayaa la weyneed hibo ilaa hadda waa sidaas meel sare ayay taagan tahay waxayna taagan tahay afrikaannimo kadibna soomaalinimo xilligii dalku burburay qof waliba waa kii meel u cararay xaggaas iyo qurbaha ayay qabatay iyadoo dad badan ayay iska heleen oo abwaansan gub ka mid yahay dalkoodii iyo qaaradoodii ayay u boholyoobeen dabadeed intan ayay iska soo horreysiiyeen intii aanay inagu soo noqon
oo aanay inoo iman waxana ayna dhaheen kama gayoon kara xasuusihii faneed ee hiba nuura ilaahay cimriga iyo caqligaba ha u barakeeyo hiba waa mid ka mid ah taariikhda fanka soomaaliyeed waxaan filayaa inaad si wacan uga bogateen taariikhda faneed ee maamo hiba nuura daawadayaal iyaad jeclaan lahayd in aanu toddobaadka dambe ku soo qaadanno barnaamijka faallo noogu reeb qaybta kommentiga barnaamijka waxaa idiin daadihinayay anigoo caddaani ah anigoo ah maxamed cabdi lingaad iyo ridkii dhul shahad cali shaalu tan intaa barnaamij mid lamida ku kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu xubnayahow guntada xilka guud ka saaro xubnayahow guntada dhergar